dadkii nugu dhawaa ee kiilka shanaad eed ogtihiin intuu ina cagjar qabtay madaxnimada kiilka shanaad amba kiilka Soomaalida Ethiopia sidoo xiriirkeenu u wanaagsanaaday ee ugu raaysanay in ili ayuu doraata ay aflagaadeenay muuse waxa leeyahay maanta raganimo samee xilka ku wareeji Abdurrahman Sayli la baxay deegaanada ee magaca dumarka lehna waxaan leeyahay adeer meesha qurux looma joogay waa dagaal iyo dad baa la badbaadinaya iskaga baxmaanayna saxanad bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin salaatu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilaahay ma hadle subhanahu wa ta'ala ilaahay kariim ma hadle ilaahay caafimaadkiisa siyaa ma hadle ilaahay dalkeena gacanta noo soo geeliya ma hadle ilaahay waxaan ka baryaa subhanahu wa ta'ala arimaan jireen oo ilaahay naga dajiya raxmad aan nusqaan lahayn oo ilaahay soo degdegayna siiyo walaalayaal waxa weeye dalkeenu dagaal buu ku jiraa waxaana weeye in shacbiga reer Soomaaliland waajib uu leeyahay in loo waramaa kolba inta halka arrimo marayaan waxa cad in qorshihii Soomaaliland la doonayay in lagu baabi'iyo gruubkii G21 ay wadeen uu wali sidiisa u socdo waxaa jirta in adduunkii laga raariday propaganda ciida ka badan oo wax beeneeyana la waayay oo adduunka cidla ka heleen maadaama dawladda musabix hadda iska saqiirtayba in oran karna hadda literally dawladda Soomaaliland oo fakshan garanaysa horta ma jirto qorshaha u dambeeya imika doonay waxa weeye inay booromana qas ka ridaan reer awda caqli bay yeesheen waxay ku yiraahdeen war maxaadna leedihiin wala ida haystaaye Sacuudiga noo soo diray ardaydiina jaamacadaha ka soo baxaan Sacuudiga noo dalxiis yimaada Sacuudiga xaasiskiina gugi keena ma dad la haysto ayaa loo soo dalxiistay loo soo cilmi doona wax naga maqan ma jirto anaga taybeyda qaladaadkii uu sameeyay Muuse ee fasaxay in maanta laas aanood ay maamulkii Muuse garowe ee Maxamuud Salaam uu si fiican uu hawl galay waxa ka daranta soo socoto haddaanu go'aan gaadhin haddana Soomaaliland ay go'aan gaadhin oo talada aynu u deeyno Muusabixi ali gurey baa sheegay wuxuu yiri nin yiri kaliya baan talinaya waa nin orgac rartay buu yiri maanta orgac way ka daranta ali gurey waxa taa nin digaaga rartay ay la mid tahay halkan maanta marino maanta waxa weeye Soomaaliland dambi aanay gelin ayaa dusha laga saaray Soomaaliland waxa loo kaashaday wada shisheey inagana iska dhaaf inaynu dad helo taageero garab hele dadkii nugu dhawaa ee kiilka shanaad eed ogtihiin intuu ina cagjar qabtay madaxnimada kiilka shanaad amba kiilka Soomaalida Ethiopia sidoo xiriirkeenu u wanaagsanaaday ee ugu raaysanay in ili ayuu doraatana ay aflagaadeenayeen marka tiraan kiilka soo weeraray micnaheedu uu yahay soo weerartay Ethiopia laano dawladda Ethiopia ayaa arrimaha dibadda ee kaleeyada ku haysa waxa weeye waxay la mid tahay maalintii hore hadlay Muuse oo yiri dagaalku waxaan ugu wada Xasan Sheekh jaararkii oo way nagu dirayaan inagu waa kala maqanahay wayna kala diray waxa weeye nasiib darada maanta ka taagan dalkan qorshihiina uu ku socdo qorshahan aynu haysan mid siyaasadeed iyo mid military aynu haysan taas waxay keenaysaa in uu hirgasho himilada cadawgeenu maanta waxay soo fadhiya ciidamada soo fadhiya maaha ciidama ka tirsan
beesha degta laascaanood waa ciidamo shisheeye oo ku soo duulay somalilan oo u horeeyo maamulka maxamuud saleebaan ciidamada reer somaliland horta marka ore waxaan leeyahay geesiyaashow muranka muuse biixi annaga noo dhexeeya ee ku saabsan war gurigaaga hagaaji oo doorashada madaxweynaha waktigeedii cayin yaanu idinka idinay jabin idu waxay tahay ilaalayaasha sharafta reer somaliland xuduudahaas reer somaliland waxaan u sheegaya shacabka reer somaliland xuduudda somaliland waxay la mid tahay xuduudda etoobiya iyo udhexaysa soomaaliya kenya iyo soomaaliya udhexaysa jabuuti iyo somaliya udhexaysa wax laga xishoodaa weeye in la yidhaaho ciidamo dalkooda jooga ciidiya si jooga naga saara ciidamo la saaraya horta ma jirto ciidamo la saarayo laka baxaysaa deegaanka distriga laascaanood horta ma jiro ha ku seexanina waxaan soo jeedinaynaa in ciidamada shisheeye ee u yimi qabiil ahaan u yimi ee G21 ay soo waashay inay ka baxaan laascaanood ay ka baxaan ay ku soo noqdaan dadka ka barakiciyeen ay guryahoodii ku jiraan ay bileerqaysanayaan ay iskuuladii ka xidheen ay jaamacadii ka xidheen ay horumarkii ka xidheen in si ay u soo noqdaan oo magaaladu sideeda usoo camiranto wixii inaga inoo dhexeeya reer somaliland 100 wadano ku wada hadalla inoo taala muuse dee somaliland maaha waa shaksi muuse haddaa ka cabanaysaan waxaan leenahay dhig xilkan ka dejinayna deg baan leenahay laakiin waxa weeye inaynu inagu kala gu imayno haddayna soomaali wax la yeelana inagoo midaysan ayaynu la yeelanana haddaynu go-aansteynkeeda aan soo ceshanay aynu ku joogana inagoo midaysan oo cadaalad isku xukuna ayaynu u baahannahay laakiin ha ku riyoonina in laascaanood iyo taleex iyo buuhoodle iyo xudun inay ka go-aan somaliland hafilna taasi waxay noqonaysaa in xuduudihii adduunka ixtiraafsanaa aynu nilaa waan baabina hore waynugu suurtogeli weydo markaynu nili 5 Soomaali baan isku keenna Soomaaliya isku keenna inaan tan iminku meel lama tadan waa tii awgeed 64 iyo 77 wixii naga raacay xuduuda lama bedeli kariyo Soomaaliya waa isku mid dalka waa wada leenahay qolo kasta meesha ku badanta ma sheegan karto wala wada leeyahay hayna xuquuqina waxaan leenahay ku soo aqal waxa shaqeeyo garaadada waxaan leenahay garaadado caruurta yaryar mustaqbalkooda iskuulada ka xidhaan secondary ka xidhaan ha ku soo noqdeen habatoojinta ha socoto wada hadalada aynu bilowno haddii la yiraaho annaga wax alaale wixii ala tabanayo waynu dhamaysan jirnay waynu dhamaysan doonaa sida caadada inoo ahaan jirtay muuse mushkiladiisu idinko qodha maaha waa kii burca la dhacay xabadda hargeysa la dhacay eergaaba la dhacay waa ninkii un laakiin shacbiga reer Soomaaliland waxaan muxubahayn iskuma hayo waxaan walaalnimaha iskuma hayo waxaan wada dhalashaan ma aan haynin manihin iyaanu aqligu inaga qaxayn muuse xumaantiisu yaan aqli inaga kaxayn waxaan leenahay gogol nabadgelyo soo dhigaynaa talada waa yeelanaynaa ha ka baxeen ma jidhooy ka baxso laascaanood haddaa ka bixi weydaan garoweyna dhex mari doonta garoweyna dhex mari doonta ayaa laascaanood dhex maray waadii aad baan u mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliya mowqif wanaagsan Soomaalinimo ay iska taagtay hadday dadku isqabtaan waa loo soo gurmadaa sulux baa laga doonaa وأجرك أوين إلا قبتها وحويه ومضي هايسو مسلمة عدي كلا دحقشة عدي الدبكة كل شيء ذكرتها آخرية إفمد اللي إلوه مايو نيك لبا حد ديانة مقع الضمر كاله هنا وحاليها هاي هذا يرجع ماشا وروح لو ما تشوقيه والدقار هي ضد بعد بتبادينية سكبح مالين لاسعانات يعني نقول لاسعانات ميلا صوت الحيس تبو ولا صوت السوريان نقول لاسعانات وين نقطع ميلا صوت دقو ولا عمرته oo la maal gashado waan saas ay heedo waan si ku soo noqota
hala soo celiya maatida hala soo celiya leenahay nabaddu ha la qaato rabadaan baa la geliyaa ajarka khayrka loo kala dheeraynaya waxaan leenahay jamco furan ha lagu soo dhaweeya reer laascaanood xumaan waa inaga xunta inaga wanaagga inaan sfarnaa weyne muusena waxaan leenahay reer somaliland madaxu hadduu ku boko jirkuma bogsanayo madaxayna buka hoggaanka inaga xun waa in la tashadaa tale la isku yimaada muuse waxaa leeyahay maanta raganimo samee xilka ku wareeji cabdiraxmaan saylici oo dalka maanta tanaasulkaa u samee taarikhdaad geli doontahay maanta waxaan ku leeyahay saaxiib uu ku wareeji saylici xukunka dalka maanta shacbiga reer Soomaaliya taqa kuma haysatid reer laascaanood taqa kuma haysatid dawlad aan taqa haysana ma shaqayn karto saasna isla leeyahay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ilaahay dalkeena dal khayr qaba ka yeelo subxaanahu wa tacaala